بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. magacaygu waa Ibraahim Cismaan Cabdinuur. YouTube channelka daawanaysiina waa Engineer Ibraahim Cismaan. Muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sidee softwareka looga bedelaa ama looga jabiyaa passwordka mobilada iOS-ka ah haddii ay yihiin iPhone ama iPad. Markaan leeyahay sidee softwareka looga bedelaa ama looga jabiyaa passwordka, macnaheedu waxa weeyaan in halkaan nidaam loo maro marka passwordkana laga jabinayo softwarekana laga bedelayo. Marka ugu horreyn waxaa jirta softwaro ay khasab tahay qofka raba in mobiladan iPhoneska iyo iPadada ee iOS deviceska la isku yidhaahdo, qofka raba inuu ka shaqeeyo oo shaqo ka qabta waa inuu la soo dego softwaradan aan hadda sheegayo. Marka ugu horreysa waxaad khasaba inaad la soo degto programka la yidhaahdo Tenorshare. Inta badan Tenorshare iBootka lama kala reebo oo magaciisu waa kaa. Marka kalena waxaad u baahan tahay software la yidhaahdo 3U Tools. Marka labada software baynu hadda isticmaalanaa. way jiraan website aan geliyo laakiin iyaga markaan galo waad arki doontaan. Ugu horreyn waxaan soo furanayaa programka Tenorshare iBoot. Tenorshare iBoot maxaan ku falayaa? Tenorshare iBoot number 1 waxaad samaynaysaa in lagu geeyo meel la yidhaahdo recovery mode. Hadda halkan sidaad ka arkaysaan recovery mode-ku waa shaashada haddii mobilka iPhone-ka ah ama iPad-ka ah ee aad ka jabinayso passwordka ama aad softwareka ku duubayso ee aad ka bedelayso softwarekeeda ku jiray, waa in la geeyo shaashad la yidhaahdo recovery mode. haddii aan shaashadaa la geyn mobilka password lagama jebin karo. waxaad ka soo qaadaa marka gaadhigu yahay nooca la yidhaahdo automatic, waa in dhiida la geeyo haddii uu parking ku jiray ama uu R ku jiray. kadib dhiida marka la geeyo buu hore u dhaqaaqi karaa. marka taa macnaheedu wax weeyaan haddii aad rabtid inaad password ka jabiso iPhone ama iPad ama aad rabto softwareka xumaaday dartii in softwareka hore laga bedelo mid cusub lagu duubo, shaashadan waa khasab marka hore in la geeyo. haddii aad rabto inaad iPhone iyo iPad password ka jabiso ama aad software ka bedesho, waxaad u baahan tahay recovery mode in la geeyo. marka hadda waxaan u baahannahay in aynu intaynan enter odhan, halkan intertan ayaan ku dhufan doonaa in computerka USB-ga ugu xidhiidhisid mobilkaaga iPhone-ka ah. waa inaad markaa USB-ga caadi u galo aad enter ku dhufato. enter ayaan siinayaa. dabcan halkan 3U Toolskii mobilka ayuu soo akhrinaya, laakiin waxaan u baahanahay inaan ku noqdo Tenorshare iBootka. okay, kan waa 3U Tools, ma baahnin. imika waa kan haddeer. hadda wuxuu sheegayaa USB-gii markaan gelinay inuu soo qabtay mobil la yidhahdo iPhone 8 Plus oo ku xidhiidhsan yahay, laakiin weli ma joogo shaashada la yidhaahdo recovery mode. marka hadda weli processkii ma bilaabin, recovery mode-na ma geenin mobilkii, kaliya waxaan geliyay waa USB-gii. sidaa darteed halkanna Tenorshare-ku uu sheegaya in mobil iPhone 8 Plus computerka la soo geliyay. sidoo kale softwarekiina labaad ee 3U Tools oo ah kaynu softwareka uga bedelaynana wuxuu sheegayaa inuu soo geliyay mobil. halkaasna waad arkaysaan iPhone 8 Plus midabkiisu yahay gold ama dahabi oo 64 GB ah. marka computerka uma USB ku xidhiidhiyay mobilka, weli ma geyn recovery mode, softwarena kama bedelin. marka si aan iskula soconno waxaan tegayaa softwareka la yidhahdo Tenorshare iBoot. kadib recovery mode waa kan. kadib waxaan leenahay enter ayaan ku dhufanayaa. wax yar marka uu wareegayaa oo waxaa laga sugayaa mobilka ayuu markaa wuxuu gelinayaa iminka xaalad la yidhaahdo recovery mode oo shaashadaas u geynaya. hagaag hadda wuxuu inoo soo qoray recovery mode successful. waa kan mobilka marka hadda sidaa waxaa lagu geeyey recovery mode oo hadda halkan hadda aragtaan iPhone 8 Plus is in recovery mode, wuxuu joogaa recovery mode. marka hadda ayaynu aadaynaa 3U Tools. keliya softwarekan la yidhaahdo Tenorshare iBootka waxaanu isticmaalinay oo keliya waxay ahayd in lagu geeyo mobilka shaashad la yidhaahdo recovery mode. recovery mode-kuna waa shaashad ilaa la geeyo aan mobil iPhone iyo iPad softwarena laga bedeli karin, passwordna laga jebin karin. intaa ayaan jeclay inaan aad ugu celceliyo. marka hadda waxaynu tegaynaa softwarekan intaa un ayaynu uga baahnay, waan iskaga tegaynaa. waxaan tegaynaa 3U Tools. hadda aragtaan 3U Tools iminka wuxuu joogaa meesha la yidhahdo soo qoray recovery mode. recovery mode-kuna sawirkeedu waa shaashada sidan u eg. hadda aragtid calaamada fiilada iyo computerka laptopka halkaa kasoo muuqanaya, macnaheedu waxa weeyaan mobilkaasi wuxuu joogaa recovery mode-kii oo hadda wuxuu diyaar u yahay in passwordka laga jebiyo. okay, mobilkan marka hadda aynu ka jebinayno waa iPhone 8 Plus. waxaan tegayaa website aan kala soo degayno softwarekii aan ku duubi lahayn si passwordkana looga jebiyo. marka halkan browserkayga aan soo gelayaa. halkan waxaa inooga furan daaqad la yidhaahdo ipsw.me. marka website-kan halkan aniga suunteedii soo geliyay. haddii aad rabto inaad mobil iPhone ka jebisid ama iPad password ama software ka bedesho, softwarekiisii aad ku duubi lahayd meeshaad kala soo degi lahayd waa kan. marka step 1 wuxuu ahaa mobilka recovery mode gee. step 2 waxa weeyaan softwarekii aad ku duubi lahayd si aad password uga jebiso ama software ka bedesho la soo deg oo soo download garayso.
meeshaan ka download garan lahayn waa kan adi chromekaaga xagga sare browserkaaga waxaa ku qortaa ipsw.me inta ayaad siinaysaa marka halkan ayuu ku keenayaa browserka marka waxaa ku jira ama website-kan waxaa ku jira mobilada kala duwan iyo qalabka kala duwan ee shirkadda Apple ay leedahay softwareadooda oo dhan baa la isugu keenay hadda iPad uma baahni iPhone baan u baahanahay 8 plus inaan la soo dego waxa la yiraahdo softwarekiisii okay click baan siinayaa iPhone-ka marka hoos ayaan u sii raacaya waxaan raadinayaa iPhone-ka aan rabo inaan ka jabiyo noociisa marka inagu waxaan baaraynaa 8 plus hadda waa kuwan okay hadda halkan waxaa yaala 8 plus global ah iyo iPhone 8 plus GSM ah xagan sidoo kale iPhone 8 kaliya oo GSM ah iyo iPhone 8 kaliya oo global ah marka inagu keenu waa 8 plus laakiin haddaad eegtaan markaynu joogno tusaale ahaan kaynu recovery mode ku geenanay kaliya wuxuu sheegayaa kani tenorshare-ku inuu yahay iPhone 8 plus sidoo kale 3U Tools-ka haddaan tago wuxuu sheegayaa inaynu modelkaynu ka jabinayna yahay model name-ka haddaad eegtaan halkan iPhone 8 plus laakiin maxaan ku garanayaa inuu yahay 8 plus kuma GSM ba mise waa 8 plus ah global labadaa waa kee okay waxaa jira website markaa kaa caawinaya website-kaas hadda aan tagno waxa la yidhahdaa waa kan isna IPSW-gii in yar buu kaga duwan yahay kaliya isaga halkaa dambe waxaa ka raacda .ipsw.com kii horena muxuu ahaa softwareka lagala soo degayay ipsw.me marka modelkaynu soo hubinaynaa halkan waxaa ka muuqda iOS-kan ku dhufanaynaa marka aynu hubinayno modelada kala duwan ee iPhone-adu leeyihiin hoos baan u raacayna waxaan baari doonaa iPhone 8 plus-ka maadaama modeladoodu kala duwan yihiin hadda halkan haddaad eegtaan waxaa yaala iPhone 8 plus global ah marka global yaa la yidhaahdaa waa kuwa modelkoodu yahay iPhone 10.2 oo iyaguna waa intaasoo nooc waa ilaa saddexdan nooc marka saddexdan noocba waxaa la yidhaahdaa 8 plus global la isku yidhaahdaa oo model numberkooduna waa iPhone 10.2 okay kan kale isagu waa 8 keliya laakiin 8 plus kuwa kaa kan 8 plus kani waxaad inoo egtaan GSM-ka ahaa waa kan 8 plus GSM isaguna waa maxay isagu waa meeshaas waxa weeyaan iPhone 10.5 3U Tools-kan tegayaa 3U Tools-ka waa kan halkaa maxaa ka muuqda model name-ku iPhone 8 plus sax hoostiisana model identifier waa kii aqoonsanayay modelku sii yahay maadaama uu model name-ku yahay 8 plus muxuu ka sii yahay wuxuu ka yahay kaygu aan hadda computerka ku xidhiidhnay 10.2 haddaan marka website-ka ku noqono 10.2 waa kee iPhone 8 plus global waa kan weeyaan leadkan ku jira marka 10.2 waa modelada 864 ee 898 ee 899 baa waxaa la isku yidhaahdaa 10.2 oo ah global iPhone 8 plus saa darteed markaan la soo degayno waxaan la soo degaynaa iPhone 8 plus global ah haddii aynu la soo degno iPhone 8 plus GSM ah macnaheedu waxa weeyaan model identifierkiisu waxa weeyaan 10 hakad 5 sidoo kale kaynu rabnayna maaha intaa oo waa 10.2 markaad aqoonsatid modelka identifierka la soo deg marka hadda inaga keni waa kan hoose waa global marka ipsw.me-gii markaan galno ka aynu la soo degaynaa muxuu noqonayaa marka aynu iPhone-ada baaranayno iPhone baad tegaysaa kadib hoos baad u soconaysaa waxaad baaranaysaa iPhone 8 plus global ah iPhone 8 plus kan ku dhufo waxaan oo kale haddaad aragtid waxaysis close iska dheh hadda waa kan oo haddii uu yahay cagaar halka haddaad ku aragtaan tigta la saaray waa signed in shirkadda aqoonsan waa safe waa ku duubi kartaa computerka mobilkaaga iPhone-ka software-kana waa kaga bedeli kartaa marka hadda kan wuxuu soo baxay May 11 waa isla sanadkan waana 5 GB marka la soo degay 27 click baan siinayaa marka aan dib ugu yar celiyo meeshan hadda intaanan ku dhufan kan soo mayna arag waqti ku soo baxay GB-giisa hoos hadda u socotaan waxaad arkaysaa modeladii ka horreeyay ee laga baxay laakiin iyagu unsigned weeyaan marka maaha safe inaan ku shubtaan waa laga gudbay marka iyagaas ka duubin kan u dambeeya cagaarka mar walba ku dhufo marka click baan siiyey hoos baan u degaynaa halkan waxaa ka soo baxay download-kan siinayaa haddana download labaad buu halkan inooga soo saarayaa marka haddana saa ugu dhufto waxaa la rabaa inuu inoo bilowmo downloadkeenu oo faylkaasi inoo soo dego walow ay ku xidhan tahay internetkaaga tayadiisa ama awoodiisa hadda waa kan laba jeer bay igaga dhacay mid aan kansalo waa kaa 5.7 halkan oo arkaysaan oo waa 5.7 marka way ku hagi karaan oo Windows-ka kale marka la isticmaalayo
tallaabooyinka qaadi lahayd oo dhan bay kuu sheegayaan. Apple computer haddaa haysatid ama Linux iskugu duwan yahay. Marka halkan laba website baynu iska soo dhinac furnay. Waxaan rabaa note-ka inaan idin geeyo si waxayn aydan ugu wareerin. Markaynu rabno inaynu mobilka ogaano modelkiisa waxaynu gelaynaa website-ka la yidhaahdo .ibsw.com. marka modelkaynu soo akhrinaynaa. Hadda keeni modelkiisa muxuu ahaa 10 intaasuu ahaa. Saa darteed wuxuu noqday iPhone 8 Plus ah global. marka kaa waxaa u baahan tahay inaad modelka ku fahantid waayo mobilo badan oo waxaa jira waxa laga yaabaa inuu ku saaro iPhone X haddana iPhone X-kii marka la soo deg midna ku raacaya GSM midna global ku raacay marka wax dooqaysaa marka si aadan ugu dooqin modelkaaga waxaad ka soo eegaynay meesha la yidhaahdo Tree Tools markaynu soo eegno modelkeena halkaasaan ka soo eegaynaa marka qaybtan saasaan marka uga baxaya casharka koley aad inaan ku noqonoqday baan dareemaya marka taasi waa taa website-ka labaadna waxaa la yidhahdaa ibsw.me isagoo kii lagala soo degayay software-ka lagala soo degayaa software-ka aynu kaga jebinayno ee mobilka lagu duubayo ayaynu kala soo degaynaa ka okay kaasina waa labadan halkaas website-da ka baxay marka iminka waxaan tegaynaa Tree Tools-keeni hadda adiga internetkaaga awoodiisa ku xidhan tahay dabcan hadda already kan waxaa dhacaya ilaa 300 MB anigu waan iska joojinaya maadaama aan horay ula soo degay waxaan tusayaa meesha uu computerkayga uu ka yaalo halkan downloadska haddana hadda idin tuso waxaa yaala qaybtan waa kan halkan ayuu ii yaala aniga isagoo ah 5.73 horey aan ula soo degay marka aan la soo dego waxaan tegaynaa Tree Tools markaan tagno hadda iDevice daaqad la yidhahdo ka jooga Tree Tools oo mobilka ii sheegaysa laakiin markaan software ka bedelay waxaan tegayaa meesha la yidhaahdo Smart Flash baynu joognaa Smart Flash markaynu joogno hadda dabcan haddaa aragtaan import waxa weeyaan horey ugu soo import gareeyay delete waa odhan karaa laakiin kan haddaan delete wuxuu iga saaraya software-kii aan la soo degay wuu iga saaraya marka halkaasaan tigta ka qaadaya qaybta haddaan tigta saaran tahay waa software-kan la soo degay halkan ii yaalay buu iga deleteaya marka tigta ka qaad kadib waxaan leeyahay delete baan leeyahay qaybtan uun ayuu ka saaray laakiin software-ka igu jira computerka markaas waxaan leeyahay import markaan ku dhufto wuxuu geynayaa downloadskii okay downloadskii marka waa kan la soo degaya iPhone-ka 5.7 ka ahaa markaas waxaan riixayaa open markaan idhaahdo marka wuxuu gelayaa process la yidhaahdo verifying-kaas marka wuxuu hubinayaa software-kani ma signed ba oo waa la isku halayn karaa mise maaha hadda website-kii halkan haddaad eegtaan meeshanu ka eeganay inuu sign ahaa waa kan meesha cagaarka marka inuu safe yahay buu eegaya haddii mid kan aa la soo degtay already intaadan software-ka ku duubinba halkan tijaabada koowaad baa ku dhacaysa okay marka halkaa waxaad sugaysaa intuu 100% ka noqonayo hagaag okay hadda aynu sugno importer ayuu yiri macnihii waxa weeyaan software-kii aynu la soo degnay waxaanu dhex keenay Tree Tools waxaa inaynu dhahno ku duub si password-kuna uga jabo software-kana looga bedelo marka halkan laba option baa yaala waxa weeyaan moolka marka software-ka laga bedelayo xogta ma waxaa rabtaa inay ku badbaado marka keep haddaa dhahdo moolka software-ku kaaga bedelmay oo xogtiina waa lagu badbaadiyay haddaa dhahdo erase moolkii software-kiina waa laga bedelay waana la dhaqay marka haddii biinka laga jebinayo kale uu yahay moolkaas mool password laga jebinayo erase baad dooranaysaa hadduu yahay moolkaas mool software-kiisu xumaaday oo lagu arkay culays fara badan oo lagu arkay inuu update-kii diiday oo lagu arkay inuu marmar programmada iska soo tuurayo adoo cilado badan oo keenay in software-ka laga bedelo ayaad keep ba odhanaysaa software-kiina uu ka bedelayaa ciladihii uu ka saarayaa xogtiina kaama baxayso hadda anu kan waa midaan password ka jebinayo saa darteed waxaan ku qasbanaa idhaahdo erase kadib halkan hoose haddaan daaqadaygu soo weyneeyo halkan hoose waxaa ku taala start flashing iyadaan ku dhufanayaa kadib wuxuuna leeyahay flash now taasaan ku dhufanayaa marka iminka markaa processkan ayuu wadayaa processkan marka uu wado dabcan mobilkana waad arki doontaa hadduu miis ku saaran yahay wuu isdiminayaa wuu soo daarayaa calaamad buu iskeenayaa meesha caddaanka ah oo sawirka sharadan idin soo saaraya intaa marka uu dhammeeyo 100% gaaro mobilkaas wuxuu noqonayaa mobil software-ka ka bedelmay update ah sidoo kalena password-kii uu ka jabay marka dabcan waan ogahay in muuqaalkan uu aad u dheeraaday sharxaad badan tahay laakiin haddii steps-ka oo keliya aad muuqaalka intaad ka fahmayso ku soo celcesho hadba aad fahantaan waxaan aaminsanahay in mobil dambe oo iPhone ama iPad markaa software ka bedelaysaan aydan cid wax uga baahnayn ama aad password ka jebinaysaan keliya videoga rukumo haddii aad isleedahay uu kaa baxayaana la sii deg ama like saar ama waxaad samaysaa sii save garayso channelkana dabcan haddii subscribe aadan odhan subscribe dheh marka waxaan isticmaalnay labadaa website kan waxaynu ku aqoonsanaynay mobilka haddii mobilo kala duwan hal mobil hadduu ku yidhaahdo GSM iyo global oo kale
waa kaa ku kala saari lahayd modelkii saxnaa xaggeed kasoo eegaysay markuu kasoo xidhmo waxaad kusoo eegaysay tv toolska qaybtan kaga soo baxayay ka muuqaalka aad ku laaban doontaa sidoo kale ibsw.me waa ka aynu kala soo degnay softwarekaasina ha noqdo mid ah sign oo waa ka cagaarka waa inuu noqdo oo safe ah kadib waxaynu isticmaalay software la yidhaahdo tenashare-kana waxaynu u isticmaalnay inaynu ku geyno shaashad la yidhaahdo recovery mode-kana muxuu ahaa waa shaashada haddii aan la geyn aan mobilka softwarena laga bedeli karin passwordna laga jebin karin ha ahaado iphone ha ahaado ipad sidoo kale waxaynu isticmaalay three toolskana waa softwareka hadda aynu ku jirno ee mobilkeena flash garaynaya oo ka jebinaya xogta dhaqaya passwordkana saa ku dhaafinaya taasina waa kaa intaa haddii aad haysatid dabcan waxaan aaminsanahay in aadan u baahnayn in mobil dambe oo iphone ama ipad qof u geyso aad dhahay iiga jebi ama aad lacag ku bixiso marka dabcan muuqaalkan waa muuqaal faa'iido badan waxaan kaa codsanaya inaad la sii wadaagtid dhalinyarada kale ama ardayda kale aad is leedahay wax ka faa'iidaysto channelkana si muuqaalada kan ka dambeeya ee faa'iidada sida kan oo kale u leh aad u hesho waxaan kaa codsanayaa in aad saarto subscribe waxaynu sugi doonaa in uu ka dhameeyo 100% markaa ayaanu muuqaalkan sugayna marka wax yar waa iska dul qaadanaya muuqaalkana waxaan ku samayn doonaa speedkan kordhin doonaa وهجاج إمك واحد أركيسان حق الشاشة إن موبلكي فلاش garayntiisii uu dhamaaday dhinacan kale waxaan ka duubayaa isaguna mobilkii oo softwarekii uu ka jabay passwordka dibna loogu duubay software cusub marka waxaynu sugaynaa uun inta uu kasoo kacayo wax la yidhaahdo mobilka intuu kasoo kacayo ka shidmayo ayaynu sugaynaa laakiin shaashadda waxaad arkaysaa inuu inoo soo qoray congratulations flashing completed successfully waxaynu sugaynaa uun waa in liidintan yar hadda waxaad aragtaan mobilka iphone 8 plus keenii uu wado liidintaas markay dhammaato wuxuu soo kici doonaa sidii caadiga ahayd mobilkaasina wuxuu diyaar u noqon doonaa in la isticmaalo iminka waxaad arkaysaan inuu dhameeyey wuxuuna soo saarayaa marxaban ama halow oo wuxuu doonayaa in iminka haddadan badhanka taabto oo kale waa caan oo markaad aragtaan in luuqadda iyo ku weydiinayo taa macnaheedu waxa weeyaan in mobilkaasi uu ka jabay marka hadda wuxuu u baahan yahay in la set up gareeyo hadda marka wuxuu u baahan yahay in la set up gareeyo apple id iyo wixii lagu xidho laakiin muhiimaddu waxa weeye inuu passwordkiina ka jabay uuna softwarekii caadi u shaqaynayo marka halkaasaan cashar ku joojinayaa dabcan waan ogahay in muuqaalka intaan ugu talagalnay ka dheeraaday laakiin muhiimaddu waxa weeyaan halkaa muuqaal inuu kaaga filan yahay iphone kasta iyo ipad kasta keligii isaga xooga saar wixii faa'iida ka nood garayso isku day walilahi alxamdu asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh